بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضا وضيال ميل كستو joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiya News qodobada wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Djibouti iyo Somaliland oo safka hore ka galay dalalka laga dhoof harimacadka midowga Yurub oo war ka soo saaray khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed Xuseen Roble daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid qodobada ugu doorka rool warkeena kuwa iyo kuwa kale faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeeno fidsan laakiin inta ka horeysa u diyaar garooba qadar adeega bulshada ah ugaarsiga xayawaanaadka kala duwan sida harimacadka iyo ka ganacsigooda sharci darrada ayaa faraha ka baxay dalal badan oo Afrika ku yaala iyo ka ganacsiga harimacadka la soo ugaarsado oo hab qarsoodi ah dalalka Afrika looga saaro diyaarado iyo doonyo si dalal kale loogu iibgeeyo ayaa maraya heer ah in ay iibkooda lagu xayeysiiyo baraha bulshada kuwada xidhiidho ee sida Facebook warbixin dheer oo ay daabacday warbaahinta East African oo fadhigeedu yahay dalka Kenya ayaa lagu sheegay in Somaliland iyo Djibouti safka hore kaga jiraan goobaha laga dhoofiyo xayawaanada la ugaarsado ee harimacadka ka midka yahay warbaahinta oo soo xiganaysa warbixin ay soo saartay hay'adda difaaca xayawaanka ee World Animal Protection ayaa sheegtay in xayawaanaadka la ugaarsado ay ka mid yihiin harimacadka fidmeerta iyo harimacadkiisa yar kadibna si qarsoodi ah meelaha qaar looga taabulo diyaarado doonyo Patrick Tikrorej oo ah aqoon-yahanad khabiir ku ah ka ganacsiga sharci darrada ah ee duurjoogta isla markaana ka tirsan jaamacadda Colorado ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay intii uu waday cilmi baadhistiisa la xidhiidha bogagga baraha bulshada ee lagu xayeysiiyo duurjoogta la soo ugaarsado si loo iibiyo uu ogaaday in duurjoogta laga dhoofiyo waddan kasta oo Afrika ka mid ah Latin America iyo qaaradda Aasiya diyaarado kala duwan baa lagu soo daabulaa ayay tiri Patrick cilmi baadhista Mrs Patrick ayaa daaha ka qaaday in harimacadka yaryar ee laga ugaarsado Somaliland iyo Djibouti inta badan doonyo lagu geeyo dalalka bariga dhexe iyadoo intaa raacisay warbixinta inay jiraan isla markaana qaarkood diyaarado lagaga daabula harimacadka yaryar ee laga ugaarsado Somaliland iyo Djibouti wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa sheegay in qorshayaashiisa ugu muhiimsan ay tahay ictiraaf raadinta dalka Dr. Ciise Kayd oo warramay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa waxa uu intaasi ku daray in dunida oo dhan uu ka dhaadhicin doono sidii Somaliland ictiraaf u heli lahaa shirweynahani wuxuu ka qaadanayaa door muhiim ah oo ay qurbajoog waxa ka mid yihiin qaybaha bulshada ee ugu muhiimsan ee dibadda jooga dalka dibaddiisa jooga waxaana ka qaadan doonaan role aad iyo aad important oo aad iyo aad u muhiimsan ayay ka qaadan doonaan waxa weeyaan qorshahayga ugu horeeya waa shaqadayda ugu muhiimsan waa shaqada wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga priority number 1 kiisa weeyaan wax kale in lagu meeraysto maaha waxa weeyaan ictiraaf raadista itaal iyo lacag iyo aqli iyo cilmi wax walba oo saaraynaa waa shaqadayda shaqooyinka ugu horeeya ama shaqadayda ugu muhiimsan ictiraafrinta Somaliland dunida dhan baa ayaan ku mashquulsanahay inaan ka dhaadhiciyo Somaliland ma aha dal kaliya ma aha dad kaliya ma aha qoomiyad kaliya ummadda adduunyada ku nool wixii sympathetic oo ah dal xor ah nabadgelyo jirto ku dhex yaala dalal jaar ah oo ay dhibaatooyin badan ka jiraan xalay wixii danaynaya taas iyo adduunyada inteeda kale jecel xornimada iyo nabadda ayaan ka dhaadhicinayaa oo
baxay. Dowladda Maraykanka ayaa war ka soo saartay khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya kaas oo ka bilowday kiiska Igraan Tahliil. War qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay sidii loo wajihi lahaa arrimaha doorashooyinka dalkaasi iyo sidii loo soo dooran lahaa baarlamanka labada aqal ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale warka Maraykanka ka soo baxay lagu yidhi haddii uu khilaaf sii socdo waxaa wiiqmi doona awoodda dowladnimo ee curdinka ah ee Soomaaliya isla markaana ay ka faa'iideysan karaan kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab oo ka dagaalama gudaha Soomaaliya. Waxaan ku boorinaynaa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble inay si nabad ah ku xalliyaan khilaafkooda oo ay si buuxda diiradda u saaraan soo afjaridda doorashooyinka Soomaaliya iyadoo aan dib u dhac kale dhicin. Doorashooyinku waxay lagama maarmaan u yihiin amniga, xasiloonida iyo barwaaqada muddada dheer ee Soomaaliya ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xafiiska dowladda Maraykanka ee Afrika. Hadalkan ka soo yeedhay dowladda Maraykanka ayaa ku soo beegmaya xilli marba marka ka sii dambaysa uu sii xoogaysanaya khilaafka Farmaajo iyo Roble isla markaana beesha caalamku shir ay shalay yeesheen ay ugu baaqeen labada mas'uul inay dhammeeyaan khilaafkooda kuna dhaqmaan dastuurka dalkaasi u yaala. Midowga Yurub ayaa ka hadlay arrimaha Soomaaliya waxaana ugu baaqeen madaxweynaha dalkaasi Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble inay soo gabagabeeyaan khilaafka siyaasadeed ee ragaadiyay labada mas'uul maalmihii la soo dhaafay. Waxay sidoo kale Midowga Yurub sheegeen in loo baahan yahay in la xakinin geedi socodka dadaalada doorashada dalkaasi iyo nabadgelyada isla markaana la tixgeliyay heshiisyada hore loo gaadhay 27 May. Waxay tani furo u tahay badqabka dadka Soomaaliyeed. Dhammaan daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya waa inay xakameeyaan xasiloonida guud ee Soomaaliya iyo gobolka ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay Midowga Yurub. Warkan ka soo baxay Midowga Yurub ayaa ku soo beegmaya xilli maalinimadii shalay beesha caalamku ay dhankooda war ka soo saareen arrimaha Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda cakiran ee u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Waxaa sidoo kale khilaafkan u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha baaqyo kala duwan ka soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay dowladda Maraykanka kuwaas oo ku wada baaqay in madaxda dalkaasi khilaafka u dhaxeeya ay iyaga dhexdooda xalliyaan iyagoo u tulaya dowladnimada curdinka ah ee Soomaaliya. daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaminteena wareedintan warkan warkayga kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.